بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 11 November 2025 waxaan halkaan kula wadaagaynaa war-saxaafadeed ka soo baxay shirweynihii wacyigelinta u qareemida iyo la tacaalida bacaadka ku faafay deegaanada Puntland. Wasaaradda Deegaanka Daaqa Isbeddelka Cimilada ee Puntland ayaa 9 November 2025 qabatay shirweyne ballaaran oo lagu falanqeeyay dhibaatooyinka bacaadka iyo nabaad guurka ee sida xawliga ah ugu faafay deegaanada xeebaha ee Puntland gaar ahaan degmooyinka Jiriban, Eyl iyo Godob Jiiraan iyo deegaano kaleba. shirka ayaa isu keenay madaxda dawladda hay'adaha caalamiga ah iyo bulshada rayidka ah si loo sameeyo jawaab midaysan oo waxtar leh oo lagu xakameeyo fiditaanka bacaadka iyo saameynta isbeddelka cimilada ee sii xogeysanaysa. warbixin rasmi ah oo lagu soo bandhigay shirka ayaa muujisay in ka badan 618 kilomitir square oo dhul ah oo ku yaal degmada Jiriban bacaadku ku habsaday taas oo sababtay barakac khasaare dhaqaale iyo hoos u dhac ku yimid wax soo saarka xoolaha kalluumaysiga iyo beeraha haddana khatar weyn ku haya dekedda Garacad oo ah il dhaqaale oo muhiim u ah Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo furay shirka ayaa ku dhawaaqay in fiditaanka bacaadku yahay musiibo deegaan oo heer qaran ah isagoo xusay in Puntland ay u baahan tahay taageero wadajir ah oo gudaha iyo mid caalami ahba. shirweynaha ayaa soo saaray go'aano muhiim ah oo ay ka mid yihiin kuwa soo socda. in madaxweyne ku-xigeenka Puntland hogaamiyo guddiga sare ee la tacaalida bacaadka kaas oo ay qayb ka yihiin hay'adaha dawladda, bulshada rayidka ah iyo daneeyaasha caalamiga ah iyo isla markaana xafiiska madaxweyne ku-xigeenku uu hogaamin doono qorshaha guud ee wax ka qabashada musiibada bacaadka iyo isku duwidda howlaha gurmadkaba. 2 in arrinta bacaadka lagu daro qorshaha horumarinta ee Puntland 2026-2030 si ay u hesho miisaaniyad joogto ah iyo qorshe maalgelineed oo cad taas oo suuro gelinaysa in dawladdu si midaysan oo nidaamsan u wajahdo khataraha deegaanka. 3 in la abuuro hindise isku dhafan soo celinta dhulka xeebaha ah kaasoo diiradda saaraya dhirbeeris ballaaran, sare xilliyeedyo, ilaalinta dhuldaqsimeedka iyo maamulka deegaanka oo ku salaysan bulshada si loo xoojiyo adkeysiga isbeddelka cimilada muddada fog. 4 dawladda Puntland waxay sidoo kale ku baaqaysaa gargaar degdeg ah oo biyo, cunto iyo hoyba la gaarsiiyo qoysaska dhibaatadu saameysay. waxaa la xoojiyey in isbeddelka cimiladu uu saldhig u yahay fiditaanka bacaadka, abaaraha soo noqnoqda iyo luminta kheyraadka dabiiciga ah. 5 in dawladda Puntland ay si buuxda uga go'an tahay hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee la dagaalanka saxarowga, yareynta iyo la qabsiga isbeddelka cimilada iyo kala duwanaanshaha noolaha isla markaana ay diyaar u tahay in yoolasha 13 iyo 15 ee Sustainable Development Goalska iyadoo tallaabooyinkeeda la jaanqaadayaan ajendaha COP30 ee hadda ka socda Brazil kaas oo diiradda lagu saarayo la dagaalanka nabaad guurka, ilaalinta dhulka iyo xalalka deegaanka ku salaysan. ugu dambeyn dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka, deeq-bixiyaasha iyo hay'adaha taageera deegaanka in ay si degdeg ah uga jawaabaan ayna ka qayb qaataan dadaalada lagu badbaadinayo deegaanka dekedda Garacad iyo bulshooyinka u nugul bacaadka iyo burburka deegaankaba. dawladda Puntland waxay adkeynaysaa in la gaaray xilligii la sameyn lahaa iskaashi dhab ah lana qaadi lahaa tallaabooyin wax ku ool u ah bulshada iyo deegaankaba dhammaad.